بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين. الحقيقة ma garanayo sababta ay gaalkacyo u noqotay buffer zone ama isbaaro ilaalisa nabadgelyada Garoowe. ma garanayo sababtay ku noqotay baanan garanayn, siday ku noqotay baanan garanayn, siday dadku u aqbaleen baanan garanayn. waxa aniga ii muuqday miyaanay islaam bashiir u muuqan, miyaanay cumar maxamuud u muuqan, miyaanay leelkase u muuqan, miyaanay ummadda halkaa joogta u muuqan. gaalkacyo waa dhuxul damba suwan. gaalkacyo haddaanay yeelan maamul qura oo ummadda deggani aanay heshiin wax qaybsan, buffer zone bay u noqotay Garoowe. qodobka intaasaan ku dhaafaya. aan taariikhda dib u raaco. heshiiskii gaalkacyo Caydiid iyo Cabdilaahi Yuusuf baa abuuray jabhad dalka Soomaaliya ka baxda. Caydiid iyo Cabdilaahi Yuusuf raxmallaahu calayhim bay ahaayeen. federaalkan maanta uu siciidani ku dhegan yahay Cabdilaahi Yuusuf baa keenay. warma nimankii federaalka keenay baa noqday buffer zone oo u noqday Garoowe. ma wax caqliga geli karaa? miyaa nin wax garanayaa idinku jirin? qabiil wax ma aha, waxba ma noqdo, dawlad ma noqdo. waxaad kaga quusataan sida Garoowe ay tahay iyo sida gaalkacyo ay tahay. in cumar maxamuud haddii uu dhinto nin saacadaa dhintay, nin saacade hadduu dhinto nin cumar maxamuudaa dhintay, nin leelkasa abaa dhintay, nin awtabla abaa dhintay. ma waay maamul xumo weeye. maamul baanay lahayn. waay ay maamul u yeelan weydeen. kheeraad noqoteen. kheerihiina Garoowe waa ka faa'iidaysatay. muraadkama ay laha waxa idinka dhimanaya. waxaan idinkula talinayaa sidan isu dhaama haddaad tihiin gaalkacyo barigeeda. qodobka intaasaan ku dhaafaya. magaalada Mandheera la yidhaahdo waxaa ku taalla xero lagu tababaro maleeshiyaadka oo ay Kenyaanku sameeyeen. yaa xeradaa loo sameeyey? yaa ka soo duulaya? waa Soomaali. yaa lagu soo duulayaa? waa Soomaali. yaa dabada ka wada? waa Kenyaan. dadku miyaanay caqliga inta aan garanayo miyaanay dadku garanayn? madaxweyne ugu horreyn wan xeradaa la xidhaa hadday Kenyaanku nabad rabaan. waa farriin aan madaxweynaha u diraayo. axmed madoobe iyo nimanka maleeshiyaadkana war taariikhda xun baad ku qoranteen. sabab ha u noqonina in dhiig sokeeye aad daadisaan oo shisheeya dabada idinka soo wado oo dalkiinnii wuu idin leeyahay hooya xabaddan ku rida. waxaan xusuustay xilligii ay jabhaduhu u baxeen Ethiopia. wadaniyad maaha,
قيم ماها أخلاقيات ماها قدم كان انتاس أيام كدافية قدقي دور شوينك إنجليز بالله لحدي أفريقيا الله كلنتي وروي صومالية تركيا هكا عبال دعينا صومالية والليدين ستاه iyadoo aynu bakhtiga cunayno waad ogeydeen ayaa Rajab Tayyib Erdogan dalkeena yimi aan idin xusuusiyo xilligii uu madaxweynaha ahaa Sheekh Shariif saaka waxaynu ugu abaalgudaynaa cay ooyaynu wax kaga rabnaa dana shisheeye iyo dana shisheeye warna ma qabato war Soomaaliya idinma qabato war ka jooga abaalawayaan Soomaalidu noqon waa dawlad muslima waa dawlad inoo soo gurmatay waa dawlad caalamka inoo soo jeedisay waa dawlad weyn waa dawlad dhakhtarkii dhistay waa dawlad laamiyadii dhisaysa waa dawlad ina caawisay yaan laga abaaldhicin Turkiga weliba siyaasiyiintan la hadlaya Soomaaliyeed الحقيقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.